السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قالي صدودا عافمادكينا ساتيهين maanta video waxaan idin wadaa in bacaadi ahayn oo wax la kala gareynaya cunto la karinayo cuntadan quruxda badan hortiina arkaysiin baan ka soo tuuray gabadheeda yarta iga codsatay orange chicken iyo usmeenaya maadaama ay jeceshahay maxaaheedo panda marka waxaan dhahay anaa maanta ku sameynaya xaafada ingredientska waxa dhan u baahan tahay hore meeshan kugu soo qoray hortaada screenka ku soo qoraya marka alaabaha u baahan tihiin dhan idin tusinaya haduu ilaahay yiraahdo videoga please like iyo saar comment share inta waa codsi hadaa awoodid aad iyo aad u mahadsan tahay marka soo baxa shaqadeena gudagali doonaa haduu ilaahay yiraahdo waxa weelka yar igu jirana waxa waaye ukunta qaybta cad marka waxa dhan aan ku dardarsanaya kadib waxa kale idinka iloobay ina idin tusiyo ani hata waan iloobay marka hore laakiin gadaal aan uga darsaday liinta orange ka aan kala dilaaciyay kadib waa ku miiray and then alaabta dhan aan ku darsanaya oo isku walaaqaya 30 minutes afka ayaan ka xiraaya bas alaabteeda kalaaska si diyaarsanaya intuu marinate gareynayo kadibna waa karin doonaa insha Allah ay la socdaa videogan waxaa video hore aan u geliyay markaan ku soo celiyay again sida in hore idinku sheegay gabadheeda iga codsatay inaan u kariyo cuntadan panda aad u jeceshahay maadaama ay jeceshahay dhahday xaafad miigu karin kartaa hayaan dhahay maalin hore hataa waxaan u sameeyay maqaaxido kale oo Raising King la dhaho ay jeceshahay chickenkiisa aan u sameeyay marka waxay dhahday hadana kan ay samee soo saadarteeda aan u sameeyay videogan video hore waaye oo idinku soo celiyay laakiin cuntada mar oo xaafadeeda waa ka kariyaa ciyaalka aad ay u jecel yihiin leeysa u sameenayo iyo waxa isku dardaray waxa dhan waa arkaysiin waxyaalahan ku dardarayaan hore idinku soo qoray waxay ku qoran tahay screenka ka arkaysiin wax walba adii wixii dhan isku soo dardaray daboolka saaraya 7 daqiiqo sugaya inta oo iska dhaxgalaysa flavor-yaasha dhan kadibna maxaa la 30 minutes ku soo dhamaaday saan ku soo wadaya alaabiyan soo hagaajistay dhan ayaa aan dhaxshanaya kadibna waa karin doonaa haduu ilaahay yiraahdo hada videoshna aan camal ka heshaan like subscribe comment hadaa rabtiin videoga dhahay Raising King oo ciyaalkaaga jecel yihiin oo rabtid si loo sameeyo inaad aragtid let me know hoos igu soo qor waan soo sameynaya no problem marka ciyaalkaaga jecel yihiin cuntada banaanka waxa ugu sameysan kartaa gurigaada wax walba cunugaaga uu ku weydiisto magaciisa leenta YouTube ku qortid sida loo kariyo halkaas ka soo baran kartaa believe me instead of maalin walba cunto banaanka soo gadid mise mar walba cuntooyinka banaanka healthy ma aha ani rabaan ku sheegay before ilmahayga oo banaankan ka soo cuni jirnay badana baan ma fiicna moogta ilmahayga ma jecla cuntooyinka aan guriga ka karin jiray so laakiin hadda wax alaala waxay jecel yihiin xaafada ugu sameeyaa maalin maxaa la dhahaa week hal mar bas cuntada banaanka in looga soo galo ay loo ogol yahay hadda waa ka joojinay because waxyaalo badan aan ka fahanay cuntada banaanka qofku soo diyaarinayo ma garanaysid caafimaadkana ma fiicna anyway marka wax alaala cunugaaga ku weydiisto biiso anything xaafada ugu sameyn kartaa adigana waa ku fiican tahay because you're not gonna waste a lot of money ma waste garanaysid waxa adiga sameysidna waa ku kalsoon tahay because you know waxaad ku dartay moogtahay marka anyway wakaasana ku soo wadaya saliidio kulul chickenki ku ridaya waxaan ku dhigi karaa cuntadan cunto oo inaba caadi ahayn waa oo macaan badan oo gacantaadana ku sameysatay yaa ka fiican marka daa ka hesha please like subscribe comment share inta waa idinku soo celinaya please like wataa share gareyn hadaa rabtid just like la isaar sifa uu videogayga hor ugu sii socdo adoo mahadsan chickenga qaybtiisa ugu dambeysa hadda ku guray waa ka soo saaraya again mar labaad aan ku celin doonaa chickenka inaa fry gareeyo because mar labaad markaa ku celisid wuxuu ka caawinayaa chickenka inuu noqdo
qardam you know mise wax yar oo crunchy yariisu yeelanaya oo fiican so sida hore hadii ku dhaaftid wax yar oo wuxuu yahay jiljileec camal oo noqonaa laakiin mar labaad anaga waxaan jecelnahay inuu qardam uu dhaho you know like crispy uu noo noqdo yeah waxaan igu qoslina qardam hadaa dhaho maxaa ka wadaa soundka actually chickenka uu sameynaya moogtahay so crunchy af Soomaali lagu dhaho magacaadi wax yar oo qardam dhahaya yeah that's how you say it so saasa loo dhahaa anyway and waxaan sameynayaa haddana meeshaan sauce-kii waaye waxaan ku daray dhan halkaan idinku soo qoray brown sugar ketchup honey water yar iyo soy sauce intaasaas ku walaaqeynaa waa arki doonteen waxaan ka sameyn doonaa insha Allah adib waxaan ku dhahay bahal chicken oo macaan badan haddii dhegta lagu qabanayo hataa maaragtay ka foqeynin baan idin soo sameeyay hopefully inaa ka heshaan and xaafada ciyaalka u sameynaaye laakiin maadaama mar hore aan duubay what's the point inaa mar labaad kusoo celiyo asagiyaa idinku soo celiya marka I hope inaa ka faa'iidaysataan hadduu ku anfacana please and ha noqonin maxaa la dhahaa bakayl likes ka saar hadaa ka hesha bakayl ha noqonin sidoo kale likes ka saar okay because waaba ka hesha moogtahay waana daawatay aad iyo aad u mahadsan tahay haddana sooski aan soo sameynay ayaan ku shubayaa digsiga wax yaraan isku yar walaaqaya kadibna waxaan ku dari doonaa waraangadii mise baashasito oo biyo yar ku shubay wax yar kusoo walaaqay aan ku gedinayaa waan walaaqayaa because waraangada waxay naga caawinaysaa inuu sooska aan rabo inaan chickenka ku daro inay noo adkaato you know kadibna waxaan kusoo darayaa chickenkii sida arkaysiinba waa isku walaaqi doonaa insha Allah marka dambena waxaan ku dari doonaa sesame seeds sesamiga sesame I think sesame la dhahaa Soomaali yeah sesinta miraheeda aan kusoo kordari doonaa because quruxnaba caadi ma noqonayso macaan kelina waaye saana kusoo baxay chickenkeena inaba caadi ma aha inta yaa rabaadana waxaan u sameynayaa bariis cad aan ku cuni rabnaa anaka insha Allah and yeah marka ciyaalka la sistiraa moogtaa waxaa la leeyahay waa kaasaa panda idin kariyay cuntada daya si u qurux badanta u macaanta waa loo xayeysiinayaa bariis cad halkaan ku karsanaya anyway bariis cad ma u baahnin in la tusiyo ana guriga bariiska la arkaysiin digsiga biyo markay qulaadeen you know kadibna bariiskeenu noo soo karayay and shaqo fiican baa laga qaban doonaa meesha martana ilaahayna ma maryaa mindhaha ku soo galay anyway bariiska waa kana sidaan ugu soo baxay for my kids and my husband aniga hadda diyaar u meen inaan cuno marka ayaga ayaan usoo diyaariyay maasha Allah sida quruxda badan ay ku soo baxday marka videogan haddii aad ka hesheen don't forget inta like sartiin subscribe if you're new haddana waxaan sameysanayaa dessert yar marka banana bread le waaye banana bread all the time guriga laga kariyaa maasha Allah xaafadeyda because my kids love and what my kids love I have to do it all the time somaha anyway hadda weelasha ayaan dhaqdhaqanayaa insha Allah marka daawasho waan أنا ولا شيء مرة وضع معي عن كل قضاء دي فواشر كمان استعمال هذا تعمل هي عارف خنايا متكلم متى ولا شيء خنايا ما ديوان أنا جا ميبي تطلع دي فواشر كل قضاء ودي بيا ولا شيء لكن أنا ولا شيء ما ديوان تاع خنايا بيها يطعمها يقول لي جرا وكل حستة ما شاء الله ما كأنكم من عارفين منها ولا دخلين تفاصيل يسوي جواب إن شاء الله weelasha waa soo dhameeyay maasha Allah hadda waxaan sameynayaa meesha oo kabaha loogu talagalay qaanadaasayto akiyaa soo gatay 3 sano camal ay taalaa meesha kabaha aan ku xareeyo waa aan ku qariyo maadaama ay wali way ugu yar tahay because 4 qaanadood oo kaliya waaye anaka kaba badan qabnaa uma leeyahay laakiin waxaan sameeyaa kabaheena waa kala bedelaa kuwa aan xiranayno weegan intay noo yaalayaan kuwa oo wiiga kale adag u baahan inaan gashano maskabaha iska bedelno korayno yaalaan koraak soo dejisana saasa u kala maareysta anyway because kabayaasha haday meesha ku bataan foolxumo waaye waxaan yaroo meesha yaalo alaabta ku qalajista waa mid yaroo la isku laabo ayar meel ligeysid haddana waxaan shidanayaa luwaan uunsi inaan shidayga ma hayso luwaanta rabaa inay guriga igu baxdo jikada dhan saana loo soo kaleyn garay qoraxda badan aniga hadda waxaan diyaarsanayaa bahal koob oo shaah
koob shaah diyaarsanayaa kadibna keegaas aan sameeyay aan gobol yar ka goosanayaa. Hadda xilligan la soo gaartay aad iyo aad u mahadsantahay. Bye bye guys. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.